بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جانل كينا أفنان كوكين هدي أتاي مركي كوغوريس oo daawanaysid fadlan janalka subscribe ku qaba like saar si share garee qeyr badan Allah kaasi insha Allah. Haddii aad hore noola joogto waan kaaga mahadcelinaynaa la joogaada quruxda badan soo dhawaada. Maanta maxaa inoo wadaa nafaqada tinta. Timaha la rabaa maanta in la qurxiyo. Marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay asxaabey. Marka hore waxaan soo diyaarsaday makiinada aan ku shiidi lahaa. Marka hore waxaan u baahanahay jab yar oo sanjabiil ah oo aan si yar yar u soo jaray. Waa kaasa sanjabiil waaye. Sanjabiilka qoyan. Marka waxaan ku darsan doonaa 2 qaado oo saliid qumbo waaye oo fadhiso. qaadada labaad waa taasa. iyo 2 qaado oo olive oil waaye. castor oil waaye. oo iyadan 2 qaado ah. waa Vaseline waaye. Vaseline-ka 1 qaado ka dhigtay. markaan waxaan ku darsan doonaa mayonnaise. hadda ukun jecesha ukunta waa ku darsan kartaa beddelkeeda mayonnaise caadi waaye. labadaas xabo batar yariis ah waaye. iyo 1 xabo moos ah. yogadka oo baleenka ah. saliid olive oil oo nooc kale ah waa iyadana. intaas la isku shiidaa hadduu Ilaahay yiraahdo. si fiican u shiida inta iska daba raacayso oo si fiican isugu milmayaan insha Allah.
markaan diyaar waaye asxaabe waan ka damiyey baaquligaanan ku shubanaa insha allah. wixii garaafada ku haraan kasoo tirtira. marka nafaqadeena waa tana laga sheekeeya asxaabe. timaha abaaraa lagu dila, abaar saliidda way u baahan yihiin. tinba tintay saliidka leeda maasha allah way ka qurux badan tahay. nafaqadaana inta aa ujeedin badankeeda saliid waaye. waa ujeedaa gacanteyda sidee noqotay. saas timaha inay uga soo birbirqaanaa la rabaa. bacaa ku xiree ilaa 2 saac ama maalintii oo dhan intaa guriga joogtid ha kuu marsanaato. ka dhaqaan ku dhahay maasha allah quruxay kusoo baxayaan. timaha waxa dilayna waa abaarta. marka inta taqaano way taqaanaa, intaan aqoonina uga faa'iideynaya insha allah. marka hala soo dhawaaday asxaabe hana laga faa'iideysto. khayr badan idin rajeynaya insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.